waxaa dayactir lagu bilaabay saldhigga degmada Dhabbad ee gobolka Galgaduud kadib markii ay isku hawleen inay dayactir ku sameeyaan saldhiggaasi ururka halgan oo ah jaaliyad u dhalatay deegaanka Dhabbad kuwaas oo sheegay in dayactirka saldhigga degmada Dhabbadeed ay iyagu isku hawlayaan si iskoodana ay dayactir u sameynayaan maadaama wixii ka dambeeyay burburkii dawladii dhexe uusan helinin dayactir iyo markaa dib u habayn jaaliyadda ayaa sheegay inay sameynayaan maxkamadii degmada Dhabbad iyo sidoo kale saldhigga degmada Dhabbad oo muddo burbursanaa gudoomiyaha degmada Dhabbadeed Aadan Cabdinuur Aadan Gabi ayaa sheegay inuu uga mahad celinayo ururka halgan oo isku hawlay in dayactir ay u sameeyaan saldhigga iyo waliba sidoo kale maxkamadda waxaana uu kaga mahad celiyay sida ay u garteen maadaama wixii ka dambeeyay burburkii dawladii dhexe uusan helinin dayactir waa stationka halkaan ka muuqda oo dhabarkeeda ka muuqda wax badan oo badan baanu duubnay u diray jaaliyadaha dibadda oo deegaankan u dhashay baan u duubnay aqbalka aadna soo aqbasheen aad iyo aad baad mahadsantihiin gaar ahaan waxaan leenahay ururka halgan oo u istaagay waxqabashada waxaanu leenahay ajar allah idinka siiyo sababtu waxa weeye stationku waxa weeye midka diinta ilaaliya oo nabadgelyada ilaaliya oo deegaanka ilaaliya weeye ee stationku ma duulo dad Soomaaliyeed aduguna lacagtina waxaad ula baxdeen ajar waxaad ka heshaan ilaahayna ajar idinka siiyo ummaddiina iyo diintiina aad ku ilaalsataan qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmada Dhabbad ayaa iyaguna soo dhaweeyay dayactirka lagu sameynayo saldhigga degmada Dhabbad maadaama uu yahay mid muhiim u ah bulshada qaybaheeda kala gadisan isla markaana si uu u shaqeeyo booliiskii degmada Dhabbadeed in la dhiso saldhigga oo muddo burbursanaa ururkiina soo xasuustay oo halgan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilaah baa mahad iska leh waxaanu rabnaa sida maanta aad u istaagteen oo dalkiina iyo dadkiina aad u xasuusateen inaad kuwii kalena uga akhbaar didhaan inaad isu yeerataan inaad baahida jidha la socotaan waa sida gudoomiyuhu yiri waa leedinla shaqaynayaa shaqadu maxay meesha inoo joogtay xagee ahayd baa la yiraahdaa meesha ay inoo joogtay oo maanta aad marsiinaysaan inaad maanta ka sii amba qaadaan baa la rabaa Dr. Saciid Cali Cigaal oo ka mid ah aqoonyahanka degmada Dhabbad ayaa isaguna ku amaanay jaaliyadda halgan hawsha ay qabanayaan waxaana uu kula dardaarmay inaysan intaa oo kaliya ku ekaynin balse ay sidoo kale wax ka qabtaan arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale amniga deegaanka Dhabbadeed arrinta horumarka ee ay maanta u soo istaageen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada ururka horumarinta ee halgan horumarka ay maanta isku dayeen oo saldhiggii degmada Dhabbad ay ku nooleynayaan aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa saldhiggii waad aragtaan xaggeega dambe inuu ku sawiran yahay oo dhismihiisa uu ka socdo aad iyo aad baan idiga mahadnaqaynaa degmo ahaan iyo dad ahaanba horumarka maanta aad bilowdeen waxaan doonaynaa inaad wax badan wax ka qabataan kaabiyihii dawladeed ee burburay Maxamed Cali Salaado isagu wakiil uga ah jaaliyadda halgan dhismaha dayactirka saldhigga booliiska degmada Dhabbadeed ayaa sheegay in waxqabadkooda aysan ku ekayn oo kaliya saldhiggani balse loo baahan yahay waxqabad kale waxaan u xilsaaranahay amaamudka iyo dib u habaynta iyo dib u dhiska saldhiggan ayaa waxa ii xilsaaray halgan group oo ah dhalinyaro ka soo jeeda deegaankan oo inta badan ay dhawaan ka wada tageen oo maanta dareemay xanuunka iyo culayska ay ku hayso wax qabad la'aanta deegaankoodii sida uu yahay iyadoo mandiqadan ama deegaankan uu yahay deegaamadii ugu horeeyay Soomaaliya asaasmay 70 sano iyo ka badan ayuu jiraa maantana waxaad moodaa meelaha hadda 3 sano iyo 2 sano iyo la asaasay inay ka hormarsan yihiin waa markii ugu horeysay oo muddo 25 sano kadib dayactir lagu sameynayo saldhigga degmada Dhabbadeed iyo sidoo kale maxkamadii waxaana bulshada qaybaheeda kala gadisan ay soo dhaweeyeen arrintani iyadoo marka uu dhamaado dayactirkana ay dib u hawlgali doonaan booliiskii degmada Dhabbadeed Bashir Yusuf Nadaara TV-ga caalamiga ee Kalsan waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Cabudwaaq